xukuumadda Somaliland ayaa waxay ka jawaabtay hadal ka soo yeeray madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Siciid Cabdullaahi Danay oo sheegay in xukuumaddiisu ay weerar ku soo qaadi doonto Somaliland. wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland ahna afayeenka xukuumadda Somaliland ayaa arrinkaasi ka jawaabay waxaana uu eedo u jeediyay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland waxaana uu yidhi shalayna 200 oo askari ayuu ishortaagay oo Somaliland ugu hanjabay duusa ka baxaysa oo aanu garanayno waxa ka muuqata inaanu xogogaalba wahay waxa istaraatiijiyadda dagaal waxa ay tahay iyo waxa ninka siyaasiga iyo xaaladda geeska Afrika maanta meeshay marayso boosaasa kala dhaqaaqday oo waxa ka socda aynu ognahay maamulkiisii ayaa kala dhaqaaqay oo waxa ka socda aynu ognahay isaga iyo kuwii Soomaaliya isku sheeganayay baynu ognahay siday u kala dhaqaaqeen Somaliland oo shalay uu xogogaal u ahaa uu joogay mar raba inaan ka sanqariyo erayo aan haboonayn laakiin waxaan leeyahay wax badan inaad maamulka ka saxda ayaa ku taala waxaan kuugu baaqayaa inaad ka baxdo ama faragelinta ka dayso xuduudka jamhuuriyadda Soomaaliland leedahay ummadda Soomaaliland waa ummad tashan karta oo wax iska celin karta oo taqaana milgaheeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda sida loo ilaashado shalay marna BBC-da wuxuu ka lahaa federaalka ku haysta waa niman isdhageysan buu hoodle waa Somaliland barana inta 24 hours iyo meelaha kalena ciidan buu ku soo daadgureynaya iyo Somaliland ka baxdo maalinta uu meel istaagaba wax contradiction abu ku hadla oo aan nin sheeganaya inuu maamul madaxu yahay ku hadlin waxaan oran lahaa wuxuu yaqaanaa sida sibirka loo iibiyo iyo alwaaxda ha ku noqdo sibirkiisa iyo alwaaxdiisa taasuu yaqaanaa laakiin nin siyaasadda korfayn kara ama qiimayn kara ama xal keeni kara ama hogaamiye noqon kara maaha runtii hibaduna maba qofku maba yeelan karo dhowr hibo maba yeelan karo ganacsigiisa waa noognahay meel kasta uu ka socdaa laakiin macnaheedu maaha in siyaasaddiisu meel kasta ka socon karto anu waxaan oran lahaa waa la talin lahaa waxaan ku lahaa sibirkaaga iska iibso mar hadday boosaasana sidaa tahay xukuumad maamulkaad sheeganaysaana sidaa u kala daatay maalinta aad meel istaagtana shalayna aad lahayd buu hodlay waa Somaliland maantana aad leedahay Somaliland ka baxdo shalayna aad baran kuwii aad Soomaaliya wada sheeganayseen colaadda idinka dhaxaysa la og yahay waxaa ka muuqata inaad siyaasi madhalaysa tahay marka sibirkiisa ha aad amaduna waxay la tahay kuwa uu leeyahay waan xukumaana in ku filan way ka arkeen waa sababta keentay in uu noocaa noqdo wixii intaa ka dambeeyana dalkani waa dal aan jeclayn inuu maanta dhib sameeyo maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan wararka bulsho hargeysa shirkadda dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kastoo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda amabase goobahooda shaqo ay eheladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-dahab